Asalaamu calaykum. Maanta waxaan tusi doonaa tusaalayaal kala duwan first order differential equation. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah caadi ahaan equationka saan uu egyahay. Waxaa haysataa function f of x u dhufto y oo lamid ah function kale oo g of x ah. Marka hadda tusaaleen wuxuu noqonaa g of x markay eber tahay sidee looga shaqeynaa marka. For example, marka haddii aan haysano example-keena koowaad g of x oo lamid ah eber kasoo qaad f of x na waxay la mid tahay x iska dheh aan fududeehna. marka sidee aan ugu shaqeynaa marka waxaa haysanaa waxaa haysanaa hadda y derivative x y oo lamida eber. marka sidee aan ugu shaqeynaynaa kan sida ugu fudud. siyaabo kale looga shaqeynayo way jiri karaan, laakiin sida ugu fudud waxay noqon kartaa y derivative oo lamida minus x y kabacdina waxaan sameyneynaa y derivative waxaa loo qeybinaa y oo lamida minus x. marka caadi ahaan waxaa ognahay y derivative inay tahay dy dx soma. marka hadda tan waxay noqon kartaa hal loo qeybiyey lagu dhuftay dy dx oo lamida negative x. taas waxay la sii mid tahay dy loo qeybiyey dx dy loo qeybiyey y oo lamida x minus x dx. marka hadaa labada dhinac integral aan ka dhigno waxaa heleynaa integral hal loo qeybiya dy oo lamida minus ama sideeda marka jawaabta waxay noqonaa lny oo lamida minus hal loo qeybiyo laba x square plus c. jawaabta ma dhamaan labada dhinaca e ka dhigana haddaan dhaho lny jawaabta saanayba noqoto y oo lamida e plus. hadda kan waa sii fududey karaa
waxaan dhihi karaa tan waxay la sii mid tahay asii fudee karaa waxaan dhihi karaa sababtaa saas u dhahaana waxaa waayay e to the c waa constant maaha, waa tiro aan isbedelin, waa tiro iska caadi ah. taasoo dhan waxaan dhihi karaa c. okay, marka waxay ku xiran tahay tusaalaha siduu u yahay. hadda hadaa wax yaris adkeeno tusaalaheena labaad waxaan dhihi karnaa okay, isla sidii aan sameynaa waxaan dhahaynaa waa lamida minus e to the x y. hadda waa fahanteen y derivative loo qeybiyo y oo lamida minus e to the x. waxaan dhahaynaa okay, 1 over y dy dx oo lamida minus e to the x. taasna marka la isku dardaro waxay noqonayaa waa ka boodatan dy oo lamida integral minus to the x dx. okay, marka videoga pause waa dhigi kartaa haddaana fahmin inta ilaa xaggaas waxaa u dhexeeya step yar, marka tusaalaha ka horeeya fiirso. markii integration aan ku sameyno lny ee noqonaya e to the x integral hadaa dhahdo waa e to the x keliya waxba isma bedelin plus c logarithm waa iska kaseesiin e ah labada dhinac laga dhigaa minus e to the x plus c y ah haysataa markaas e minus e to the x ee noqoto sooma lagu dhuftay e to the c. saa hore u sheegay tanna waa soo fududeyna waxaa dhahaynaa c e minus e to the x. saanay noqotay darabni inaan fududeyno ka halaasaa ku ekeenayna insha allah. waa inuu marka